munaasabad ahayd mid lagu sagootinayo injineerada adeegyada kala duwan ee shirkadda isgaarsiinta Somtel kuwaasi oo nasiib u helay inay tababar u aadaan wadanka Malaysia ayaa waxa ay ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho mid kamid ah injineerada ayaa sheegay in wixii ay soo bartaan ay dadkooda wax ugu qaban doonaan si looga baxo baahi keeni karta in dad shisheeye ay gudaha Soomaaliya injineer ahaan loo keeno tan waxay bidaaminaysaa in ay shirkaddu ay keeni doonto adeegyada ugu casrisanaa sida adeegyada ay ka qabteen meelaha kala duwan ee Soomaaliya sida Somaliland iyo Puntland kaasoo ay ugu horeeyeen 4G-ga ama LTE-ga e-dahabka dhinaca kalena waxaan isleenahay waxa loo maarmi doonaa injineerada shisheeye oo hawsha qaban jiray waxaana ku cadeynaysaa sida injineeradeedu ay ugu dirayso magaranaysaa safar dibadda ah kaas ay ku soo baran doonaan qalabka casriga ah oo sida idin sheegay ay ka mid yihiin 4G-ga ama LTE-ga أحمد عبد الله آدن iyo آدن حاج يوسف ayaa si wada jira waxay ugu bogaadiyeen injineerada maanta u ambabaxayay wadanka Malaysia ee shirkadda Somtel inay dalkooda hooyo waxay soo bartaan ay wax ugu qabtaan waxa uu kulankeenani daaran yahay si rag horeba ay sheegeen tiimkii ugu horeeyay ee muxuu ahaa tababar heer caalami ah u baxa dibadda ugu baxa Somtel ay u dirto weeyaan tiimkani waxaana Somtel Soomaaliya waxaana hubaa insha Allah ta'ala in ay noqon doonaan kuwa ugu dambeeyay ay ku soo daba jiraan kuwa dambe oo bixi doono fara badan ay qorsheysan yihiin insha Allah ta'ala sababtoo ah rag badan hore u yiraahdeen biyo sacbadaada looga dhargaa Soomaalidu waxay tiraahdaa muxuu ahaa dharaadan lahayn huwadan lahayn kuma dhaxan tiro aqoon meel sare laga raadiyay ama meel kale laga raadiyay muxuu ahaa baahi loogama baxo waxa weeyaan in Somtel ay infasgarayso muxuu ahaa shaqaalaheeda aqoontii ay soo qaadaan iyagu soo minguuriyaan halkan ay ku dabaqaan taasaan baahida aan kaga dhargi karnaa marka waxa aad iyo aad farxad u ah in tira intaan la eg ee hal mar shirkadda u go'aansatay ay ugu dirto dalka dibadda gaar ahaan wadamada xagga tiknoolajiyada ku horeeyo si ay tababar fiican u soo qaataan maxaan ku dhahaa tiknoolajiyada cusub ee adduunka oo ay maxaan ku dhahaa kadibna uga howlgalaan xarumaha shirkadda si ay ugu adeegaan bulshada Soomaaliyeed guud ahaan waxayna tusinaysaa taasi sida maxaan ku dhahaa shirkaddu ay uga horumarsan tahay dhinaca maxaan ku dhahaa horumarinta maxaan ku dhahaa shaqaalaheeda iyo dhiirigelinta Cabdiraxiin Cabdullaahi Honkable TV Muqdisho